بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم halkani waa Tixi Technology oo ah platform waxbarasho oo ku baraya marka waxbarashada hab online ah kuna baran karto waxa weeye adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad waxa weeye uga baran karto hab online ah ama hab waxa weeye aanu qofku safar galeyn oo waxa weeye uu halkiisa ku qaadan karo magacaygu waa Khalid Maxamuud Jaamac waa macalinka maadada chemistry-ga ka dhiga platformka Tixi Technology waxaynu maanta eegi doonaa insha Allah ardayay su'aalo ku jira waxa weeye imtixaanka qaranka Soomaaliland maadada chemistry-ga kuwaas oo aan doonayno inaynu si wada jira uga wada shaqeyno ardayduna in badan naga soo codsadeen inaan waxa weeye uga soo shaqeyno oo su'aalana laga soo weydiiyay laba su'aalood baynu insha Allah eegi doonaa labadaas su'aalood waxa weeye su'aal ah chapter-kii mole and stoichiometry iyo su'aal kale oo ah marka chapter-ka loo yaqaan organic chemistry-ga su'aasha ku jirta mole-ka hadii aan ku horeeyo waa su'aasha calculation of molecular formula sidee loo soo saaraa molecular formula sidee loo soo saaraa empirical formula sidee loo sheegaa waxa weeye magaca molecular formula ku soo baxay waynu ka shaqeyn doonaa hadii Allah awood loo ogolaado su'aasha labaad ee doonayo iyadana inaynu isku daynaa waxa weeye su'aal kamid ah organic chemistry-ga chapter-ka loo yaqaan gaar ahaan groupka ama class-ka loo yaqaan alcoholiska classification of alcoholiska primary alcohol secondary alcohol iyo tertiary alcohol insha Allah labadaas su'aalood ay ardaydu aad nooga soo codsadeen ka platform ahaan ayaan insha Allah ka shaqeyn doonaa nala socdo markaa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim arday waxaan horeysiinaynaa su'aasha mole-ka gaar ahaan waxaan soo tilmaanay su'aashaas inay tahay calculation molecular formula sidee loo soo saaraa waxaynu ogsoonahay molecular formula marka la soo saarayo marka hore waxa shardi ah oo steps-ka kamida in la soo saaro empirical formulada marka aad la soo baxdo kadib waxaad awood u yeelan kartaa inaad molecular formulana la soo baxdo waliba waa inaad haysataa waxa loo yaqaan actual formula mass ama molecular mass-ka waa in given ay lagu siiyaa marka okay waxaan oranaynaa marka si aan u soo saaro waa inaan qortaa given-ka marka tusaalaha koobaad baan qorayaa tusaale example baan qorayaa marka okay molecular formula si aan u soo saaro waa inaan laba arrin mid uun haystaa waa inaan haystaa percentage composition kii curiyayaasha formulada ama waa inaan haystaa masskoodii tusaale ahaan maanta waxa la isiinaya marka percentage-ka curiyayaashaas ay leeyihiin waxa la yiraahdaa compound ayaa maxay contains waxa uu ka kooban yahay tolo waxa uu ka kooban yahay 40% boqolkiiba 40 carbon boqolkiiba 40 ba carbon haye comma 53.3% na waa maxay waa oxygen laba curiye percentage-koodii baan haystaa aan 6.7% intaasina waa maxay waa hydrogen weeyaan waxa la iga doonayaa marka inta waxa ay raaca waxa la igu yiri and the actual formula mass ka compound-kuna is waxa weeyaan maxay 180 gram ba mass-na lagu siiyay su'aashu waxay noqonaysaa calculate waxaad soo saartaa ardayow the molecular formula of the compound molecular formulada uu compound-kaas yeelanayo of the compound-ka molecular formuladiisa raadi compound-kani molecular formulada uu leeyahay raadi marka su'aashu saasay u dhignayd imtixaanka ku jirtay maxaa gifanaynu haysanaa waxaynu haysanaa saddexda curiye carbon iyo oxygen iyo hydrogen percentage-kooda boqolkiiba 40 waa carbon boqolkiiba 3.3 na waa oxygen boqolkiiba 6.7 na waa hydrogen waxa shardi ah ardayow saddexda curiye ama labada curiye lagu siiyo percentage-koodu marka la isu wada geeyo inuu 100 isku buuxiyo saddexda percentage hadii isu geeyntooda ay 100 noqon weydo equation-ka ama compound-kaasi sax ku noqon maayo marka okay saddexda curiyaan soo qaadanaya saddexda curiya mid waa carbon sida ay u kala horeynayaan waa inaad fahantaa carbon-ka markasta major ugu horeynaya waxa ku xigaysa maxay hydrogen
waxa ugu dambeyn doonta maxay oxygen saddexdii curiye markaan sidaa u qoro mid kasta percentage-kiisii baan hoos dhigi doonaa oo kaarboonku imsuu ahaa 40%, oxygen 53.3, hydrogen 6.7. kaarboonka waxaan hoos dhigayaa 40. Okay, hydrogen maxaan hoos dhigaa 6.7. oxygen maxaan hoos dhigaa 53.3. intaa marka aan qoro waxa weeye saddexda mid walba wixiisi aan ku hoos qoro waxaan u qaybinayaa mid kasta molar masskiisi. molar mass waxa weeyaan waa mass oo curiye kasta gaar u leeyahay. kaarboon oo kale 12 buu ahaa, hydrogen 1 buu ahaa, oxygen 16 buu ahaa. kan maxaan u qaybinayaa marka 12 kiisi. kana maxaan u qaybinayaa 1 kiisi. kana maxaan u qaybinayaa 16 kiisi. inta marka aan sameeyo kan waxa ii soo bixi doona 3.33. kana maxaa ii soo bixi doona 1 baa loo qaybiyay 1 kuna waa asal madoorshay isla tiradaas un baa ii soo noqon doonta. kana maxaa ii soo bixi doona 3.33. saddexda tiro marka ay ii soo baxaan saddexda ratio ee ii soo baxay ka ugu yar baan dhinac walba u qaybin doona. marka maanta laba kamid waa isku mid midna waxa weeye uu ka duwan yahay laakiin 6.7 iyo 3.3 keebaa yar 3.3. therefore dhinac walba waxaan u qaybinayaa 3.33 xagana 3.33 xagana 3.33. inta marka aan isu qaybiyo labadana waa isku mid oo 1 bay soo bixi doonaa. maxay soo baxayaan 1. labadana maxay soo bixi doonaan 2. labadana 1. waxaan helay 1.2.1. macnaheedu waxa weeyaan compound-kani waxa uu ka koobnaan doonaa hal kaarboon, laba hydrogen iyo hal oxygen. sideen u sawiri doonaa marka compound-ka sawirkiisu sidoo noqon doonaa. halka marka aan numberski la soo baxo wali empirical formula soomaan saarin. empirical formula marka la soo saaro ayuunba molecular tan loo gudbi doonaa. haye empirical formula waxaan leeyahay kaarboon waa hal, hydrogen waa laba, oxygen waa hal. halka waxaynu ku soo saarnay empirical formula laakiin wali ma inaan sawirin waxaynu soo saarnay hal kaarboon, laba hydrogen iyo hal oxygen. sawirkeedu muxuu noqon doonaa sidan soo socda. waxa uu noqonayaa kaarboonku waa hal kaarboon marka halka lama muujiyo asal madoorsha chemistry-ga marka la joogo C1 iyo H1 iyo waxa arki meys kaliya tan maxaad qoraysaa un C. halka waa la arkaya inuu halu qarsoon yahay. marka hydrogenadu waa laba, iyaga labada waan u muujinaya xanoonaya waa H2. oxygen-tuna waa maxay waa xabad iyaduna waa O kaliya weey. halka waxaan ku soo saaray marka maxay empirical formula. molecular formula marka aan la soo baxayo waxaan isu qaybinayaa empirical formuladan ii soo baxday masskeeda iyo masskii qaacidada la igu siiyay oo ahaa actual formula mass. haddaba empirical formuladan ii soo baxday haddaan masskeeda soo saaro waxa uu noqonayaa kaarboon oo 12 ah plus hydrogen oo hal ah laakiinse waa laba hydrogen 2 times 1 waa 2 plus oxygen oo 16 ah. markaan inta isu geeyo waxa ii soo bixi doona waa maxay waa 30 weeyaan. 30 baa ii soo baxay. 30ga ii soo baxay waa maxay waa empirical formula mass. maxaan u bixinayaa empirical formula mass waa 30 weeyaan. actual formula mass kana waa 180. waxaan raadsanayaa wax n loo yaqaan n waxa lagu helaa actual formula mass ka qaacidada la igu siiyay oo loo qaybiyay empirical formula mass ka aan la soo baxay. actual formula mass ka qaacidada la igu siiyay imisuha waxa uu ahaa 180 gram. empirical formula mass kana maxaan la soo baxay waxaan la soo baxay 30 gram. labada gram isu jar 180 iyo 30 isu qaybi labadaas zero isu saar 6 baa ii soo baxay. 6daas waa n weeyaan. 6daa ii soo baxay baan qaadayaa waxaan dib ugu dhufanayaa marka maxay empirical formuladaydii. empirical formuladii marka aan 6daa dib ugu dhufto 6 times carbon waa 6 carbon weeyaan oo noqonaysa maxay C6. 6 times laba hydrogen waa H2 waa 12 hydrogen. 6 times oxygen oo xabada
waa 6 oxygen molecular formulada lagu sheegayaaba waa inta weeyaan laakiin xagaan ka keenay markii koowaad empirical formuladii baan la soo baxay kadib waxaan sameeyay empirical formuladan aan maaskeedii raadiyay 30 buu soo baxay 30kii soo baxay waxaan u qaybiyay maaskii qaacidada la igu siiyay actual formula maas ahaa 6 baa soo baxday 6dii waxaan dib ugu dhuftay maxay empirical formuladaydii baan dib ugu dhuftay marka 6da kadib waxa soo baxay maxay molecular formula taasa la oran doona maxay molecular formula waliba especially molecular formula halka la igu qoray hadii la igu dhaxdo waa tuma waxaan oranayaa waa glucose weeyaan glucose weey marka su'aashu 3 qaybood bay ka koobnayd su'aashu maxay ka koobnayd 3 qaybood bay ka koobnayd qaybta koobaad waxa la igu yiri compound-ka marka sidaan lagu qoray su'aasha lagu weydiiyay calculate the empirical formula of the compound waan soo saaray empirical formula-dana waa taa weeyaan step number 2 calculate the molecular formula of the compound waan soo saaray molecular formula-dana waa taa step number 3 name the molecular formula molecular formula-da ku soo baxday magacooda la igu yiro waa glucose weeyaan saddexdaba waynu ka shaqeynaa marka su'aashaasi waa su'aashii hore insha Allah su'aasha labaad oo iyaduna organic chemistry laakiin si tan ka kooban ayaynu eegi doonaa waxa soo dhan halkeed ugu noqonaysaa waxa weeye platformka waxbarasho ee TXT technology waa course ka soo dhameystiran ayaa kugu jira insha Allah waxa weeye daawasho wanaagsan la socod wanaagsan iyo waxa weeye ka faa'iideysi wanaagsan ma rajaynayna dhamaanteen hadii Allah awoodo la ogolaado arday su'aashii labaad ayaynu insha Allah ka shaqeyn doonaa su'aashani waxay la xiriirdaa waa chapterkii organic chemistry la oran jiray gaar ahaan alcoholiska saynu naqaanay classification of alcohols marka la sameeyo ama ablaableynta alcoholiska waxa loo qaybiyaa 3 qaar waxa la yiraahdaa primary alcohols qaarna waxa la yiraahdaa secondary alcohols qaarna waxa la yiraahdaa tertiary alcohols baa la yiraahdaa okay hadaba su'aashu waxay u dhigantahay sidaan oo kale marka waxa la inagu yiri which of the following kuwan soo socdo teeba ah is a primary alcohol kuwan soo socdo teeba primary alcohol which of the following is primary alcohol taata waxa la igu yiri waxa la yiri CH3 CH2 CHOH CH3 B na waxa la igu yiri maxay CH3 CH2 CH2OH C na waxa la igu yiri CH3 CH2 CH3 CH2 sorry halkaas waa 2 weeyaan halkaasina waa 2 halka waxa la yiri C dabeet halka waxa lagaga xiray maxay OH halkana waxa lagaga xiray CH3 halkana waxa lagaga xiray CH3 okay alcoholiska marka laga hadlayo waxa loo qaybiyaa primary alcohol secondary alcohol iyo tertiary alcohol maxaynu ku kala garanaynaa inay tani primary tahay inay tani primary tahay inay tani secondary tahay waa inaynu fahanaa horta saddexdaas waxay ku kala duwan yihiin marka hore ugu horeyn primary alcoholisku waa alcoholiska functional groupka alcoholiska horta waa OH ka weeyaan hydroxide ka ayaa inta badan waxa loo yaqaan functional groupka maxay alcoholiska marka saddexda OH saddex meelood oo kala duwan bay ku xiran yihiin waxa la yiraahdaa OH ku kaarboonka oo haysto inta kaarboon ee si haysata lagu xisaabtamaya tusaale ahaan OH kani waxa uu haystaa kaarboonka waxa haysta hal kaarboon iyo hal kaarboon ba kaarboonkan si haysta waa kaarboonka oo OH ku haysto laba kaarboon oo kala ku sii dhagan oo hareeraha ka haysta kow kan OH ku kaarboonka oo haysto hal kaarboon un ba si haysta macnaheedu silsilada uu ku xiran yahay la eegaya in saddex labada dhinac laga haysto in saddex dhinac laga haysto iyo in hal dhinac laga haysto OH ka saddexaad kaarboonkan uu ku xiran yahay laakiin se kaarboonkan waxa si haysta kaarboon iyo kaarboon iyo kaarboon saddex kaarboon waxa la yiraahdaa OH ku
kaarboonka uu ku xidhan yahay haddii ay 3 kaarboon haystaan alcoholsha noocaas waxa loo yaqaanaa tertiary alcohol OH ku kaarboonka uu ku xidhan yahay haddii 2 kaarboon ay haystaan waa secondary alcohol OH ku kaarboonka uu ku xidhan yahay haddii 1 kaarboon uu sii haystana waa primary alcohol therefore saddexda keeba primary alcohol maanta waan kala garanaa wuxuu noqonayaa waa ka OH ka uu waxa weeye kaarboonka OH ku xidhan yahay oo 1 kaarboon uu sii haysto jawaabtaas waxa weeye su'aasha jawaabteeduna waxay sax ku noqonaysaa waa B da weeyaan marka teebaynu goobabi doonaa waa B da weeyaan su'aal qaabkaas oo kala ayaa iyaduna imtixaanka ku jirtay waa su'aasha aynu ka shaqeynay weeyaan waxyaabaha iyo waxa weeye information kale oo ka badan oo waxa weeye khuseeyo casharkan organic chemistry oo faahfaahsan insha Allah waxaad ugu noqon doontaa waa platformka waxbarasho ee TICSI technology halkaas aynu balama hadii Allah awood loo ogolaado insha Allah khayr iyo barwaaqo aan irjeeni hadaba platformka waxbarasho ee TICSI technology waxa uu ku diyaariyay course chemistry oo fasalka afraad ee dugsiga sare oo dhameystiran kaasoo ka saacidi doona ka arday ahaan inaad u diyaar garowdo imtixaanka qaranka ee soo socda ee muddadiisa waqtiga yar inooga harsan yahay hadiiba aad in badan ku rajo weyneed inaad darajo wanaagsan keento imtixaanka qaranka fadlan u kaalay nala soo eeg nala soo booqo platformka waxbarasho ee TICSI technology insha Allah waxa weeye waxaad ka heli doontaa casharo aad ka faa'iido casharo waxa weeye ku dhameystira oo ka dhisa dhinacyo badan gaar ahaan maadada chemistry-ga su'aalahan aynu ka shaqeynayno iyo su'aalo kalena waxaad ka heli doontaa marka insha Allah hadii Allah awood loo ogolaado course-ka marka waxa weeye waxaanu ballankeenu noqonayaa arday inaynu soo eegno waxa weeye soona qiimeeyno kana faa'iideysano barnaamijka waxbarasho ee ku jira platformka TICSI technology